magacaygu waa Khalid Ibrahim Maxamed oo dhigta iskuulka Almuniir. mise maada ayaad qaadataan? Waxaan qaadanaa 6 maado, ma 11 maado ayaan qaadanaa. Marka waa kuwaas maadooyinka maadada ugu jeceshahay marka 11 maada ayaa inoo sheegtay. badanaa waxaan u jeclahay maadooyinka scientific-ka sida chemistry-ga, physics-ka iyo biology iyo xisaabta. Waa maadooyinka scientific-ka. haddii dugsiga sare uu ku dhamaado fakaltiga jaamacadda aad ku biray hadda ma si go'aan ma ka sii gaartay adigoo aad garanaysa halka aad ku fiican tahay? hadda ku qiimeeyay maadooyinka ku fiicanahay oo maadooyinka scientific-ka iyo xisaabaadka. marka waxaan jeclaan lahaa inaan barto engineering-ka iyo xisaabaadka waxyaabaha khuseeya. ugu dambeyn ardayda Soomaaliyeed waxbarashada ku jira asaagaad maxaad ugu baaqaysaa? waxaan ugu baaqayaa waxay ku jiraan xilli waa u bixi soo bixi lahay oo wadanka soo bixi lahay, marka inay waxbarashada ku dadaalaan, maxaa la qarashaa ku baxaayo, dadaala waalidiintooda ku bixinayaan. waxaan ugu baaqi lahay anigoo ku hadlayo magaca ardayda, waxaan ugu baaqi lahay in waxbarashadaas iyo maxaa la qarashkaas ku baxayo inay kasoo mir dhaliyaan, ay dadaalaan waalidkooda iyo wadankooda iyo diintooda inay anfacaan. aad u mahadsantahay. adigoo ku bilaabaya magacaada iyo galaaska aad ka dhigtay iskuulka Almuniir. بسم الله أورانتي هذا أنكو بالله مقعيقة وحال إيرا إسماعيل هذا محسن أو دكتور مدرسة المنير بربنا سكدر سكول والميت كميدا عرضيدا فصل كفون فور سنة كان رجينا إن غلي جبان دي إيد إن شاء الله. imise maada ayaad qaadataan? haddii aan kusoo koobo waxaan qaadanaa 10 maado ayaan qaataa. 10kaasi maadada ugu jeceshahay? runtii been alle caayay maadooyinka aan ugu jeclahay inkastoo maadooyinka badankood aan jeclahay amba kulligood aan dhihi karo, haddana waxaa jirto maadooyin aad u xiiseeyo sida tarbiyadda islaamka iyo luqadda carabiga iyo Soomaaliga iyo wixii la halmaado. form 4 ayaa tahay, go'aan ma ka sii gaartay faculty jaamacadda kaga biiri lahayd? waan ka gaaray dabcan, in badan waan qorsheeyay, xitaa intaan iskuulka dhigan aan qorsheeyay dhihi karaa aan iskuul gelinba. runtii faculty-ga aan mar waliba xiisayga aan jeclayna barto waxa waa siyaasadda iyo maamulka inaan barto raba hadii la yiraahdo. ardayda waxaa lagu xantaa in xilliga imtixaanka markii la gaaro ay wax akhriyaan. adiga hadda jadwal ma sii samaystay oo wax akhris? waa ii degsan yahay, yacni qofku haddii uu arday yahay wuxuu la mid yahay qof dagaal ku jiro. kolle qofka dagaal ku jirana wuxuu ku howlgeli lahay ama awkiisa inay muhiim waay wax welibna ay jadwal u leeyihiin. marka runtii jadwal uu ii degsan yahay oo waqtiyaasha qaar baan leeyahay oo aanan ka ciyaarinoo waxa ku akhriyo. ardayda oo jadwalku u deganeen maxay tahay fariinta u diraysid? waxay tahay fariinta aan diray anigoo ku hadlayo magaca ardayda Soomaaliyeed iyo magaca ardayda iskuulka Almuniir. waxaan dhihi lahay waxa weli waqti leeyihiin, waxaan dhihi lahay waxbarashada waqtigeeda siiya, maxaa yeelay waxaa tiin waxa maanta soo baxayo oo la rabo beri inuu dhaqaajiyo waxay tahay bulshadan iyo wadanka ay sugaay. marka waa inaad juhdi badan bixiseen si ay wadan waliba dhalinyarada dhisto, sidaasoo kalena ardaydu laf dhabar u yihiin ilaa. aad u mahadsantahay. adiga mudan waa mahadsantihiin. tus magacay waa Naciim Cabdi Aadan, dhigatan iskuulka Almuniir fasalka form 3. form 3 ayaa tahay, mise maada qaad? 11. aye 11kaasi maadada adiga aad xiisaysaa? maadooyin kulli waa wada xiiseeyaa, laakiin gaar ahaan biology-ga Soomaaliga. biology-ga Soomaaliga. aye go'aan ma ka sii gaartay faculty aad kaga biiri lahayd jaamacadda markii aad gaartay? faculty-ge medicine and surgery. ardayda inta badan waxaa leeyahay 90% wax akhriska xilliga imtixaanka ayaa la bilaabaa toddobaadka hor. adiga hadda jadwal oo wax akhris ma sii diyaarsatay? ardayda aan jadwalka akhris aan diyaarsan xilliga imtixaanka inta badan wax akhriya maxay tahay fariinta u diraysid? waxaa u diray ardayga hadduusan wax aqrinin wuxuu ku arkaa natiijadiisa, laakiin ardayga inta badan wax aqriya waa ardayga kasoo muuqda fasalka oo kaalmaha hore ka galo. magacaada ku bilaabay ee galaaska aad ka dhigtay iskuulka Almuniir? mahadsanid. magacaygu waa Duniya Cabdifitaax Aadan, waxaan dhigtaa iskuulka Almuniir, waxaan ahay fasalka form 1. form 1 ayaa tahay, mise maada ay qaadataa? 11 maado. 11kaas maadada si gaar u xiisaysaa? kulli waa wada jeclahay, laakiin waxaan xiiseeyaa maadada chemistry-ga. jadwal oo wax akhrisay ma diyaarsato mase waxaad ku jirtaa ardayda xilliga imtixaanka marka la gaaro waxaad akhriyo? maya waan diyaarsaday. aye ardayda aan jadwal akhris aan diyaarsan ee xilliga imtixaanka wax akhriyo laga yaabo casharada inay ku wareeraan markay isdul fuulaan casharada maxay tahay fariinta u diraysid? kulley way muuqataa ardayga wax akhriya iyo midkaan wax akhrininba.
marka waxaad leedahay in wax iska akhriyaan ay ugu baaqaysaa aa ku bilaabay galaaska aad ka dhigtay iskuulka almuneer waa ku dhawaa magacayga waa leen macalin muuse waxaan dhigtaa fasalka 8aad fasalka 8aad ee dugsiga dhexe mise maadada ay qaadataa 7 haye maadada xiisaysaa adiga si gaar u xiisaysaa saynis haye ardayda xilliga imtixaanka toddobaad ka hor wax akhriska bilaab midaad ku jirtaa mise kuwa jadwalka wax akhris xilli hore sii degsaday jadwalka ayaa ku jirtaa haye fariinta aad u diraysid ardayda saaxiibada isku galaaska tihiin dhammaan ardayda Soomaaliyeed waxbarashada ku guda jira dhammaan waa salaamayaa ardayda hada maasanta magacayga hodan xuseen xasan waxaan dhigtaa iskuulka almuniir gaar ahaan fasalka form 3 ayaad dhigataa inaad ugu sarnamis hal galaas ayaa kaaga dhiman mise maadada qaadataa 11 maada ayaan qaataa maadada si gaar ah u xiisaysaa adiga dhammaan maadooyinka dhan inkasta aan jeclahay 100% markii laga sii reebo aan shakhsi ahaanteyda waxaan sii jeclahay maadada biology-ga ayaa jeceshahay faculty jaamacadda aad kaga beeri lahayd hadda go'aan ma ka sii gaartay mase dib ayaad u dhigatay taas shaki ma ku jira waa anigoo yar aan go'aan gaaray inaan dhakhtar noqonayo insha Allah doctoress aan noqonayo xaaladahay gabdhaha inta badan caafimaadka lagu xantaa xagga caafimaadka ayaan ku jira ha insha Allah ani intaas ka mid noqonayo ugu dambeyn fariinta u diraysa ardayda isku galaaska aad tihiin iyo guud ahaan ardayda waxbarashada ku guda jira maxay tahay waxaan fariinta waxa u dirayaa inay dadaalaan waxbarashada aad iyo aad u fiican tahay gabdhahan waxaa leeyahay Soomaaliyeed doctoress la noqdo aan aad u maasanta adiga waa ku dhawaa magacayga waa Daay Maxamed fasalka 8aad ka socda fasalka 8aad ay dhigataa imise maadada aad qaadataa 7 maado 7 maadada adiga xiisaysaa maadada Englishka aad xiisaysaa aye xilliga wax akhriska ma qolada waxa ku jirta toddobaadka imtixaanka ka horeeya bilaaba mise jadwal wax akhrista ayaa ku dhagan jadwal wax akhris ay u dhigan haye ardayda jadwalka aan lahayn xilliga imtixaanka maadooyinkii iyo isdul koray xilligaas oo akhris bilaabo inta badanna ku weerar fariinta u diraysa maxay tahay waxa ugu baaqayaa inay imtixaanaadka iska akhriyaan si aan hadhoobtay u qoomayn aad u maasanta adigu magacaada ku bilaabay iyo fasalka aad ka tahay iskuulka almuneer waad ku mahadsan tahay magacayga waa Cabdiraxmaan Ibraahim Cabdulle oo ku magac dheer Master Indhoolka laakiin dadka igu naanaysan Cabdiraxmaan Dow waxaan dhigtaa iskuulka almuneer fasalkiisa form 1 ayaad dhigataa saaxiibka oo indha qaba ayaa isku galaastiin bal adiga sidee wax u qortaa sidee u isticmaashaa bal sharax horta waad ku mahadsan tahay horta dadkii aragga la waxaa jira horta baahi gaar ah oo ay qabaan oo aragga ah laakiin saas ay tahay is dareensiino oo Allah khayr siiyo iskuul shirkadda hunuud aad aragtay naga garab siiso marka saas ay tahay far waxaa jirta bareel la yiraahdo oo soo baxday 200 sano ka hor 1840 inay tahay jeclayaa oo soo saaray nin la yiraahdo news bareel fartaas aan wax ku qornaa kuna akhrinaa waliba markii fartaas loo eego ardayda kale galaaska tusaale markii Soomaaliya la yeerinayo adiga ma wax dib ayaad ku qabtaa mise ardaydaasi sida iyaga u qoraan adigana u qortaa cashirka dhibaato aan kala kulmo ma jirto ardayda markuu macalinka soo gala sabuurta cashirka saarta way yeeriya waan qortaa sidaas weey waxba kuma dhaaf wax ma dhaaf bal hadda haddii waxa ku yeeri waad qori kartaa aad iyo aad haye bal qalabkaada diyaarso haye bal inoo qor maxaan ku qoraa macallin waxaan ku yeerinayaa anigoo Cabdiraxmaan waxaan dhigtaa fasalka koowaad ee dugsiga sare
intaas aad qortay bal inoo akhri. waxaan qoray aniga oo ah cabdiraxmaan waxaan dhigtaa fasalka koowaad ee dugsiga sare cabdiraxmaan waxaan kaloo ku weydiinayaa imtixaanaadka markii la qaado oo macallimiinta ay qaadaan qaabkee macallimiinta imtixaankaada adiga ee u saxaan? horta waa ku maasan tahay. horta sanadkii igu horreeyay iskuulkan soo galay iskuul waxaan dhiga jiray arad koo oo caadi ah macalinka oo soo galaa su'aalaha wuu yeeriyaa ardayda way ka shaqeeyaan asiga u dhiyo fartiisa farteenu kasii jiray. hadda maadaama uu yahay iskuul mid aan ku cusbahay weli mas arkin imtixaan laakiin waxaan rajeynaya insha allah inaan isfahmi doono oral aan laga qaadi doono malena. sidaa ayay u badan tahay. haye ugu dambeyn waxaa jira dad sidaadoo kale oo baahiyaha gaarka dadka qaba qaybkee laakiin aaminsan inay wax bara karin bal fariinta u diris maxay tahay? horta waa mahadsantaha macallin oo dadka soomaalida ku fara badan yihiin waan ku aragnay laakiin hadda maadaama uu soo baxay iskuul la yidhahdo alnuur oo dadka dhan soo dadka aragga la u dadaalo ilaahay khayr ha siiyo iskuulkaas waxaan leeyahay khayr allah siiyo dadka araggana waxaan leeyahay ha niyad jabina weligiinba dadka idinkaa u sarreeya ilahi wuxuu leeyahay fa innaha laa tacmal absaar laakin tacmal quluub allati fi suduur indhaha lagu sheega aragga maayan laakiin waa qalbiga marka ardaydaas waxaa leeyahay qalbigiina dejista niyadiina ha dhisnaato xarfaanay aada iskuulaadka. cabdiraxmaan indhoolnimada ma ku dhalatay mase xilli dambe ayaad noqotay? waa ku dhashay macallin. aad oo mahadsantay cabdiraxmaan. iskuulka almuniir axmed macalin ibraahim ustaadi waxaad kusoo dhawaataa barnaamijka madasha waxbarashada ee telefishinka tusma t v. waa dhowahay waana ku mahadsantihiin bahda tv-ga tusmo waan ku dhownahay waana aada u mahadsantihiin waana salaamaya guud ahaan maamulka bahda tv-ga tusmo waxaan ku salaamaya salaanta islaamka oo ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ustaadi wax walba marka intii la bilaabin ka hor waa in fikir oo yimaadaa kadibna lagu dhaqaaqaa. manoo sheegi kartaa xilligii uu idinku dhaliyay aragtida in aad furtaan iskuulka almuniir? waa mahadsan tahay. fikirkan iskuulkan waxbarashadiisa lagu fikiraya in la dahfuro xilli dheer ayay ahayd laakiin waxaa lagu guuleystay sanadkii 2012 afartii bisha agoosto ayaa lagu guuleystay in si toosa loo dardargeliyo oo hawshiisa si toos ay u bilaabato laakiin muddo ka hor in badan waa ay jirtay fikirkaas waana ku fikirin. tan iyo markii la furay iskuulka almuniir imise dafcadood ayaa ka qalin bedelatay? waa mahadsan tahay. iskuulka intii uu shaqaynayay waxaa ka qalin jebisay dufcado gaarayo 2 dufcadood ayaa ka qalin jebisay oo haddaba ka qayb galay imtixaanadii lasoo dhaafay ee dowladda ay qaadaysay. dufcadii saddexaadna hadda ay ku soo jirtaa saaxada ayagana insha allah inay ka qayb qaataan imtixaanada soo socda. qaybaha oo ka kooban yahay iskuulka almuniir? iskuulka wuxuu ka kooban yahay bilowgiisii hore wuxuu ku bilowday hal xarun ayuu ku bilowday laakiin hadda 2 baranji ayuu si toosa ugu shaqeeyaa oo ku taalo degmada dharkinley. jadwalka mid kugu jirtaa in aad qaybo kale ama xarumo kale aad hirgelisaan mustaqbalka dhow? waa mahadsan tahay. waxaan rajaynayaa sida badan in badan waan rajaynaa in uu kasii ballaarto 2daas baranji maxaa yeelay mar kasto kaalintaada ama waxbarashadaada waxaa waaye waxay ku xiran tahay awooddaada intay la eg tahay. marka iskuulka bilow waa soo dhaafay marka hadda waan rajaynaa insha allah in inta aan rajayno in badan in xarumo ka badan hadda inta uu ku shaqeeyo inay hirgalaan waan rajaynaa insha allah. manhajka iskuulka almuniir uu ku baxo? manhajka uu ku baxo waxaa waaye luqada ingiriishka ayuu ku baxaa iskuulka waana manhajta oo hadda inta badan u badan iskuullada magaalada muqdisho. iskuulka almuniir dalado hoostaga? waa mahadsantahay. waa su-aal muhiim ah. iskuulka almuniir wuxuu ka tirsan yahay dalada ahliga ee lagu magacaabo fbenis. daladaas ayuu iskuulka si toosa uga tirsan yahay. waxaa jira qoysas danyare haddana caruurtooda ay doonaan inay wax bartaan ma jira caruur aad qoyskaas ka tirsan oo iskuul ka dhigtaan oo aan waxba laga qaadin? wallaahi waa aada u mahadsan tahay. iskuulka waxaa waaye asigoo inta badan wuxuu ku shaqeeyaa dadka deegaanka ah danta yar inuu aad oo asigana waxaa waaye uu kala qayb qaato culeysyada haysto. sidaad ogtihiin marka waxaa waaye iskuulka naftirkiisa waa iska barayfad
hadda ma ahan mid meel ku tiirsan dadka ka shaqeeyna waxaa waaye dad ayagana naftirkooda guryahoodii ehelo kasoo tegay marka saas ay tahayna waxaa waaye danaha qofka noo imaanayo ayaa inta badan ayaan danayna anaga ardayda marka ay idin qalin bedeshaan waxaa jira arday aan iska bixi karin fiiga lagu dhigto jaamacadaha iskuulkiina garab ku siisaan in ardaydaasi sidii ay usii wada lahaayeen waxbarashadooda waa mahadsan tahay inta badan waxaa na soo gaaro jaamicado oo ka shaqeeya magaalada muqdisho minxooyin ayaa la helaa sida badan hadda waxaa waaye xilliyadii hore waa laga duwan yahay jaamicaadkii maadaama ay ku bateen waddanka waxaa aad loo helaa minxooyin hadda marka ma aanan arkin arday oo fii uu iska bixi waaya darteeda haddan ardaydeena ka mid a oo iska jooga xaafadaha ma arkin ardayga asagay ku xiran tahay in uu dadaal ama waxbarashadiisa inuu sii wato laakiin hadda minxooyin iyo waxyaabo badan inta badan waa helnaa anaga waana soo gaartaa ardayda oo noo qalin jabshayna waan siinaa wayna ka qayb qaataan jaamicadaha ku tagan sidaas arday marka wax la barayo waxyaabo badan ayaa lagala kulmayaa meel markii la wada joogana dadka waxaa la yidhaha sharci baa kala ilaaliya tusaale haddii arday oo qas ka sameeya xiisada gudaheeda ma jiraan sharciyo aad ugu tala gasheen oo ardaygaasi qabanaya waa sax meel aan ka jira sharci ma jiriyo laakiin waxaa waaye horta dadku iska ardayda dhalinyaro maadaama ay u badan yihiin waa iska dhib badan yihiin dhibaato badan waa lagala kulmaa laakiin waxaa inta badan anaga aan u sameynaa fasal kasto formaster ayuu leeyahay ardaygii dhibaatada waa la kala qaadaya haddii ay tahay dhibaato weyn haddii u geysto iyo dhibaato fudud haddii tahay waa la kala qaadaya marka formasterka wuxuu ku filan yahay haddii tahay formasterka la tacaamulo maamulna lama soo gaarsiinayo laakiin haddii dhibaatada ay noqoto dhibaato weyn waxaa waaya taas maamulka haddii uu xalli karo maamulka lagu ekeena haddii laga dhamaa waayo ehelkiisi in loo gudbiyana ehelkiisii waa loo gudbiyaa marka waxaa waaye waa yaalaan sharciyo oo ah ardaygii qas ama dhibaato wax sameeyo waxyaabo oo canaan ah lagu sameeyo waa jirta oo sharci ah waxaana inta loona fiirshaa waxa uu sameeyey waxa ay gaarsan yihiin iyo madax adeegiisa iyo usluubkiisa sida u yaalla ardayga ayaa la fiirshaa inta badan ardayda waxaa leeyahay waxaa jira qaar ka soo daaha waqtigii iskuulka u astay inay ardayda soo xaroodaan ardayga inta badan caadaysta ee soo daaha saameyn ma ku yeelataa soo daahitaankiisa natiijada imtixaanka maya hadda arrintaas anaga ma aan sameyno anaga nidaamka noo degsan waxaa waaye ardaygaas ka soo daaha xiisadaha in maamulka oo ayaa waxaa u degsan waxyaabo canaan oo asiga uu kula dhaqmayo ardayga ee ardayga imtixaankiisa lama gaarsiiyo marka ardayga haddii waxaa noo degsan sharciyada ka mid ah ardayga 3 maalin ama 3 mar camal soo daaho irdaha waa laga xirtaa waxaa la marsiyaa marka 3daas mar haddii uu gaarto waxaa inta badan la gaarsiiyaa ehelkiisa waxaa la yidhaha war ardaygaas muxuu ku soo daahayaa soo daahadiisa waa badatay marka waalidkan kala xiriirina waalidka ayaa soo hadal qaaday xiriirka idinka dhexeeya idinka iyo waalidiinta intuu gaarsiinaya waxaa laga yaabaa in ardayga saakii loo soo diray iskuulkiina oona imaanin gurigiina oosan jirin iskuulkiina oosan jirin bal xiriirka oo idinkala dhexeeya waalidiinta intuu gaarsiinaya waa mahadsan tahay anaga waxaan sameynaa maamulka asaga shaqada u taalla waxaa waaye ardayga maqan haddii xilliga la gaaro maamulka shaqadiisa waxaaba ah shaqooyinkiisa ka mid ah in ardaygii haddii xiisadii la gaaro ardaygii la waayo bannaanka haddii uusan joogin waxaa la sameeyaa waalidkiisa la wacaa waxaa la yidhaha ardaygaas intuu ku maqan yahay marka maamulka iyo ehelka ama waalidiinta waxaa ka dhexeeyo xiriir oo si dheeli ah u socdo oo ardayga haddii aan weyno isla markii waa la xiriirnaa ehelka anaga ardayga doonaya iskuulka almuniir inuu ku soo biiro maxaa shuruudo oo horyaalla kusoo biiritaankiisa wallahi hadda wax shuruudo oo gooni ah oo noo degsan dhinacaas lagama sameeyo inta badan ardayga haddii uu kusoo biiraayo waxaan u laga rabaa haddii uu fasalada uu ku biiri karo qofka mas-uul ah inuu leeyahay horta waa shardi waxyaabaha taas waa laga maarmaan marka laakiin shuruudo kale oo aad u waaweyn nooma degsano oo waxaan fiirinaa bis ardayga nagu soo biiraayo haddii uu qof mas-uula leeyahay qofkaas mas-uulka ah ayaa inta badan ayaa shuruudaha ugu muhiimsan ugu dambeyntii fariinta aad u diraysid ardayda waxbarashada ku guda jirta
waxaana maamul ayaa tahay wax badan baa lagala kulma ardayda ku guda jirta arkaysa bal fariinta u diraysa maxay tahay ardayda Soomaaliyeed ama santahay anoo ka faa'iideysanaya marka su'aashaas muhiimka ah ay weydiisay waxaan ugu baaqayaa ardayda wadanka Soomaaliya dibadda iyo dalkaba inta badan meel kasta ay joogaan waxaan ugu baaqayaa anoo ka faa'iideysanaya jaaniskan maanta oo na siiyay TV-gan waxaan ugu baaqayaa arday kasto in uu waxbarashadiisa u dhabar adeego waxbarashada horta waa adag tahay waxaa lagala kulmaa waxyaabo lagu magacaabo caqabad iyo dhibaatooyin badan ayaa lagala kulmaa marka arday kasto oo Soomaaliyeed dal iyo dibad meel kasta oo joogo waxaan ugu baaqayaa inuu ka faa'iideysto waxbarashadana laba qayb loo kala qaadaa waa maadi iyo diini loo kala qaadaa aniga marka waxa waaye aniga maamulka iskuulka Almuniir magaciisa ku hadlaayo waxaan ugu baaqayaa maadi iyo diini lagama dhamaan dhilaay marka waxa waaye wadankeena hadda u jeedaan dhibaatada ka jirto burbur badan ayaa ka jiro waxa waaye waxbarashada hadda hadii aan heli lahayn wadankeena uu cagiisku istaagi lahay waxbarashada waxa waaye ardayda waa laga saacidi lahay oo waxbarasho lacag la'aan iyo waxyaabo badan la heli lahay laakiin hadda ma jirto marka ardayda aniga marka waxaan dhihi lahay waxbarashadiina u dhabar adeega maadooyinka aad baranaysaan ku dadaala waalidiinta fiiga idinka bixinayo oo noloshiini ayaga la wareegay ka faa'iideystaan dhihi lahay ayagana waxa waaye waa wax muhiim ah sababtoo ah qof haddii wax barto waa qof waxa waaye bulsho dhan nolosheeda lagu aamini karo marka haddii aan wax la baranin waxaa yaraanaysa marka dhibka ayaa sii badanayo markaan waxaan kula dardaarmi lahay ardayda Soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxbarashadooda inay ku dadaalaan waalidiintana waxaan kula tali lahay ilmahooda inay waxbarashadooda ay ka warhayaan markasto oo maamulka iyo iskuulada iyo meel kasto inay waalidka iyo ardayda markasto in ardayda laga warhayo waxbarashadooda maamulka loo yimaado oo laga warhayo la yiraahdo ilmahayna ka warrama in waxa waaye meel kasta la tago marka waxaan dhihi lahay marka ardayda Soomaaliyeed maadaama dhalinyaro tihiin maadi iyo diini ka faa'iideysta hana lagu dhaqmo aqoontii la bartay in lagu dhaqmo ayadana fiican haddii aad wax barato haddii ardayga kula mid aad dhibayso deriska aad dhibayso akhlaaq darro looma baahna dhihi lahay marka waxaan u dardaarmi lahay taqwada ilaahay cabsida ilaahay ayaan u dardaarmi lahay anaga iyo ayagaba waxaan dhihi lahay marka hala dadaalo ilaahay hana laga cabsado waxa waaye dhibaatada aan ku jirnana allah naga baxsho saas ayaan ula dardaarmi lahay insha allah iska warqabkaas ayaan ku keenayaa social media inta badan dhalinta isticmaalaan laga yaabo xilli dambe inay gaaraan oo subaxina waxbarasho laga sugayo marka waalidku waxa laga yaabaa 5 saac ama 4 saac inuu ama inantii ama wiilkii uu guriga yimaado taasi soo caqabad kuma noqonayso waxbarashadiisa waa su'aal muhiim ah waa sax anaga hadda waxaan aragnay inta badan ardayda social media isticmaala Facebook gaar ahaan ardayda u badan meelaha u badan inta badan subaxdii xiisadaha marka la bixinayo ardayda way hurdayaan macalinku uu dareemaya marka xiisada bixinayo ardayda daala ka muuqdo waxa way soo jeeda ka muuqdo waalidku waxaan ilaa marka ardaydiina ama ilmihiina marka si ay waxbarashadiina ay waxbarasho tayo leh u noqoto social media waxyaaba isticmaalaya naftirkooda control loo sameeyo oo hal xadidan ilaa ardaygii lagu arko habeenkii 2 saac ama 3 saac wixii ka dambeeyo waalidka hadii uu ku dhaho asoo isticmaalaya internetka ha yiraahdo jooji si aad bari xiisadahaada aad u aado waqti fiican waxaan ilaa marka waalidka si ay ilmahay waxbarashadiina ay u noqdaan waxbarasho tayo leh ha ka controlaan ayaan dhihi lahay insha Allah aad iyo aad ayuu mahadsantahay ustaadi ka soo ahaa maamulaha iskuulka Almuniir Axmed Macallin Ibraahim ustaad waa kaaga mahadcelinayna waqtigaada qaar noo wadsan oo aqbashina barnaamijka madasha waxbarashada ee telefishinka Tusma TV aad wareysaasiis Tusma TV ayaan waxa leeyahay waa ku mahadsantihiin dadaalkan oo waxbarashada inaad baahisan aad ugu talagasheen gaar ahaan booqashada aad ku soo booqateen iskuulka Almuniirna waa idin kaga mahadcelinayna kun iyo kow jeer waxaan leenahay jira jira ayaan leenahay insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad waa mahadsantahay guud ahaan barnaamijkii madasha waxbarashada ee telefishinka Tusma TV ayaan jeclahay inta ku soo gabagabeeyay toddobaadkan barnaamijka wuxuu idinkaga imaanayay iskuulka Almuniir oo ku yaala degmada Dharkeeley tan iyo barnaamijkan kan xiganta isku arki doona nabadgelyo